kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada maanta aad ku daawad doontaan waxaa ka mid ah Puntland oo xiriirka u jartay dawladda federaalka Soomaaliya faahfaahin ka soo baxaysa qarax xalay ka dhacay agaarka Lido dawladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay qararidii ay Itoobiya ka reebtay Soomaaliya haweeney ka mid ah dadka deegaanka oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dalka media balse aan ku bilow maamulka Puntland xukuumadda Puntland ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan ay joojisay wada shaqayntii kala dhaxaysay dawladda federaalka Soomaaliya inta laga heshiinayo arrimaha ay isku hayaan labada dhinac qoraal Ingiriis ku qornaa oo Puntland ay u dirtay beesha caalamka iyo dalalka daneeya Soomaaliya ayay ku sheegtay in ay joojisay dhammaan arrimaha ay ka wada shaqayn jireen dawladda federaalka Soomaaliya sida dib u eegista dastuurka qorshaha amniga qaranka iyo hanaanka doorashooyinka dalka 2020 maamulka Puntland ayaa sidoo kale sheegay in aysan aqoonsan doonin dhammaan shuruudaha ay meel mariyeen golayaasha dawladda federaalka Soomaaliya sida sharciga doorashooyinka sharciga shidaalka iyo xeerka canshuuraha dalka oo sheegtay in lagala tashan qoraalka Puntland ay soo saartay oo dheer ayaa lagu sheekeeyay shirkii fashilmay ee Garowe waxaana Puntland ugu baaqday dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka in shirar kale lagu kulmo si loo heshiiyo isla markaana xal laga gaaro qodobada salka u ah khilaafka labada dhinac kale xukuumadda Puntland waxay dawladda federaalka Soomaaliya ku boorisay inay dastuurka ku dhaqanto oo ay ilaaliso heshiisyadii ay hore u galeen maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana laga wada tashado arrimaha masiiriga oo ay joojiso shuruucda iyo xeerarka aan laga wada tashan ay geynayso baarlamaanka Soomaaliya wararka ka imanaya degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in qarax xoogan uu xalay ka dhacay nawaaxiga agaarka Lido kaas oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha kala duwan ee Muqdisho si dhaba looma ogo in gaariga qarxay uu ahaa mid laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ama inuu ahaa mid qof loogu xiray waxaana socota baaritaano ay wadaan laamaha ammaanka dawladda taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya ahna afhayeenka laamaha ammaanka ee dawladda General Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in aysan jirin wax khasaaro oo ka dhashay qaraxa ka dhacay degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir abari 6 barkii habeenimo ayaa baabuur noociisu yahay Toyota Fielder ku qarxay agagaarka Lido nasiib wanaag dhimasho dhaawac ma jiran ayay tiri taliye Zakiya xilliga qaraxa uu dhacay ayay ahayd waqti ay dadka ku mashquulsanaayeen afurka taasoo yareysay khasaaraha maadaama dadka ay ku kala xaroodeen goobihii ay ku afurayeen bishan Ramadaan magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay ku dhawaad 10 qarax oo khasaare gaarsiiyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo shaqaalaha sidoo kale qaraxyadaasi waxay waxyaalo ka soo gaartay ciidamada dawladda iyo dadka shacabka ah meelaha qaraxyadaas ay ka dhaceen waxaa ka mid ah xarunta degmada Warta Nabadda kontaroolka Nisa ee daljirka Dahsoon nawaaxiga hotelka Israel iyo mid ka dhacay afaafka hore ee iskuul Djibouti dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Itoobiya ay kala hadashay sawirka qariiradii wasaaradda arrimaha dibadda soo daawacday ee markii dambe ay ka saartay website-kooda sawirkan ayaa muujinayay Soomaaliya oo laga saaray qariirada laguna daray dalka Itoobiya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad oo VOA la hadlay ayaa sheegay in isla markiiba ay ka war heleen qariirada la soo daabacay ay la xiriireen dalka Itoobiya xiriirkaasi kadibna Itoobiya ay ka saartay sawirka qariirada website-ka lagu daabacay wasiirka ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya cudurdaar ka siisay Soomaaliya qalad ka dhacay sidoo kalena ay wadaan baaritaano la xiriira sababta keentay arintaasi wasiir Cawad ayaa VOA u sheegay inay aqbaleen cudurdaarka Itoobiya ay arintaasi ka bixisay oo ay aaminsan yihiin in falkaasi uusan ahayn mid ulkaca qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa lagu yiri waxaan ogaanay sawir qaldan oo la saaray website-ka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya arintaasina ay ahayn mid ulkaca oo ah qalad dhacay ugu dambeyntii haddaan eegno magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in xalay fiidkii koox hubeysan ay ku dileen gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug haweeney ka mid ah dadka deegaanka sida ay sheegeen goobjoogyaal
haweeneydan ayaa waxaa la sheegay marka la dilayay inay ka soo baxday masjid ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug isla markaana ay ku soo tukatay salaada taraawiixda sida ay sheegeen goobjoogayaal. kooxda dilka geysatay ayaa waxaa la sheegay inay ka koobnaayeen ilaa iyo 3 qof. dilkan waxay u adeegsadeen sida ay sheegeen goobjoogayaal toorey oo ay kaga dhufteen qeybaha sare ee jirkeeda. haweeneyda ayaa waxaa loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadibna halkaasi ay ku geeriyootay sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka magaalada Gaalkacyo. ciidamada ammaanka magaalada Gaalkacyo ayaa baaritaan ka sameeyay halka ay wax ka dhaceen iyadoona baaritaanadaasi ilaa iyo hadda aan loogeen cid ay ku soo qabteen. magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa bilooyinkii u dambeeyay ammaankeeda wuxuu ahaa mid wanaagsan. hase yeeshee tan iyo bisha Ramadaan marka la gudagalay waxaa ka dhacay dil qorsheysan oo ay geysanayaan kooxo ku hubeysan bastoolada ama toorey. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen Dalka Media. intaan warkan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.